barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa waxa uu hanbaliyay safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku tagay dalka Guinea waxaana uu gudoomiyuhu sheegay safarka madaxweynuhu inuu guul weyn u yahay qaranka Soomaaliland isla markaasina safarka madaxweynuhu uu qayb weyn ka qaadan doono in Soomaaliland beesha caalamka ay ka hesho ictiraaf buuxa barasaabka arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisa safarkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagay wadanka Guinea Conakry inaanu ka mahadnaqno oo aan uga mahadnaqno madaxweynaha dalka Guinea Conakry Alpha Conde soo dhaweyntii heerkeedu sareeyay ee ay ku soo dhaweeyeen wafdidii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga iyo shacabkiisa iyo xukuumaddiisaba anagoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Togdheer aad baan uga mahadnaqaynaa runtii waxa uu na tusay saaxiibtinimo weyn isaga iyo xukuumaddiisa iyo shacabkiisabana waxaan u haynaa runtii sharaf milge iyo maamuus sida ay si kasii wanaagsan insha Allah biidnillaahi baari hadii uu maaragtay madaxweynaha ama dawladdiisa cid kamid ah ay ku timaado maaragtay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay safar ku timaado waxaan diyaar u nahay inaanu sida ay si kasii wanaagsan aan u soo dhaweyno Xamse Maxamed Cabdi barasaabka gobolka Togdheer geesta kale soo hadalkiisa si wata waxa kale oo fariin u diray mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo gudoomiyuhu sheegay in faragelin qawan ku hayaan qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland arintaas waxay muujinaysaa Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa awrka dambe awrka hore socodkiisa ayuu leeyahay waxay arintaas muujinaysaa xuquuqda xiqdiga xumaanta xaasidnimada uu ka dhaxlay nidaamkii ay isku ehelka ahaayeen farmaajo ee Maxamed Siyaad Barre ee aan ognahay ee adeerkii ah ee aan ognahay dhibaatada uu soo gaarsiiyay shacabka Soomaaliland dhibaatadii uu horseeday Maxamed Siyaad Barre waa takaliftay in goboladii waqooyi ee la oran jiray British Somaliland Protected in ay kala dib uga soo noqoto wax weeyaan midnimadii ay la midowday gobolada koonfureed ee jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.